Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan, subax wanaagsan, habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, barqo wanaagsan, qof walba siday u tahay oo wanaagsan. Sidaa wada ognahay muddo ka badan 4 bilood dunida waxaa kala xiray caabuqa faafa ee coronavirus ama COVID-19. 20 shaybaar ee dunida ugu horeysa waxay dadaal iyo tartan adag ugu jiraan helista daawo ama talaal rasmi ah oo lagula tacaalo caabuqa faafa ee coronavirus. xarunta ugu weyn bariga Afrika ee lagu daraaseeyo culumta diinta Islaamka ee Al-Mahmudiyya Sufi Islamic Center ayaa soo bandhigtay daraasad la tijaabiyay laguna guuleystay oo ah daawada caabuqa dunida aafeeyay ee COVID-19. xaruntan waxay dhacdaa magaalada Makena Road ee gobolka xeebta Kenya. daraasadan la soo bandhigay ayaa loo qaybiyay 4 talaabo oo aan inta idinkula wadaagi doono. sida lagu xusay daraasadan, daawadu ma aha mid kiimikaal ah ee waa mid herbal ama dhir ah, taasoo ay fududahay helitaankeeda. Talaabada koowaad, hal sacab oo buuxa oo dhageera ah ayaad soo qaadanaysaa, waxaana ku daraysaa 7 koob oo biyo ah. kadib ayaa dabka saaraysaa. markii uu karkaro ayaa kasoo dejinaysaa, kadibna qofka la xanuunsan coronavirus ayaad u uuminaysaa adigoo markaasi bukaanka ku daboolaya mara ama go. bukaanku isku uuminaya asagoo afka furaya oo hadba jiidaya uumitada daawada, haddana neefsanaya, haddana jiidaya, sidaas ayuuna ku wadayaa ilaa ay ka qabowdo daawada. markii ay qabowdo, mar labaad ayuu dabkii ku celinayaa. markii ay sidii hore oo kale u karto, ayuu haddana sidii hore oo kale isugu uuminayaa ilaa ay ka qabowdo daawada. haddana mar saddexaad ayuu sidii oo kale sameynayaa oo intuu dabka ku celiyo haddana isku uuminayaa. hal fadhi gudihiisa ayuu 3daas jeer sidaas ku sameynayaa. Talaabada labaad, hal qaado oo dhageera ah tuman ama shiidan ayuu 3 koob oo biyo ah ku karinayaa sida shaahi oo kale. markaas ayuu 1 koob ama 2 koob ka cabayaa hadba sida uu awoodo. wuxuuna cabayaa mid walba oo ka mid ah 3dan waqti: subaxii, duhurkii iyo galabtii. daraasaddu waxay leedahay bukaanka la xanuunsan caabuqa COVID-19 haddii uu labadan qaab sidan u isticmaalo maalinta koowaadba, xaaladiisu way ka soo raynaysaa. muddo 6 maalin gudahood ahna jiradii gabi ahaanba way ka baaba'aysaa, fayraskana wuu dhimanayaa ilaah idinkiisa. Talaabada saddexaad, 2 faas oo tuun ah ayaad jarjaraysaa oo yaryareynaysaa, kadibna waxaad ku daraysaa 1 qaando oo malab ah iyo 2 qaado oo biyaha liin dhanaanta. markaas ayuu bukaanku liqayaa mid walba oo ka mid ah 3dan waqti: subaxii inta uusan waxba cunin, duhurkii kadib, iyo habeenkii inta uusan jiifan ama seexan sida ku xusan daraasadda. Talaabada afraad, si bukaanku uu isagu uga caafimaado caabuqa COVID-19 dadka kalena uusan uga gudbin cudurka, waa dadka la noole, wuxuu soo qaadanayaa 10 faas oo tuun ah. waxaad ku daraysaa 1 sacab oo xabasowda ah iyo 1 sacab oo sanjabiil ah iyo sacab barkiis oo qorfaha shaaha lagu darsado ah iyo sacab barkiis oo dhageera ah iyo sacab barkiis oo filfisha madow ah. intaas ayaad 1 litir oo biyo ah ku daraysaa. markaas ayaa dabka la saaraysaa. markii ay karkaraan ayaa dabka ka dejinaysaa. markaas kadib ayaad waxaad korka uga daraysaa 2 qaando oo saliidda xabasowdada ah. markaas ayuu bukaanku isku uuminayaa oo sidii aan hore u soo sheegnay oo kale, asagoo hadba neefta ama uumitada jiidaya marna soo celinaya. sidaas ayuuna sameynayaa marka ugu horeysaba ee xanuunku uu iska dareemo. kadib subaxiina 1 mar ayuu sameynayaa, habeenkiina 1 mar, ilaa 3 maalin ama 4 beri ee ugu horeysa. xarunta Al-Mahmudiyya Sufi Islamic Center ee sameysay daraasadan waxay ka digaysaa qofka isticmaala kaniiniyada dhiigga jilciya sida aspirinka iyo waxa la mid ah waa inuu iska joojiyaa kaniinigaas inta uu isticmaalayo tuuntan. haddii kale noloshiisu khatar ayay gelaysaa, waxaana laga yaabaa inuu dhiiggiisu sanka ka furto ama gudaha jirka ku furmo. weliba inuu dhiigga gudaha jirka ku furmo ayaa kasii daran inuu dhinaca sanka ka yimaado. daraasadan ee sameysay Al-Mahmudiyya Sufi Islamic Center waxay ku shabeelsan tahay ama ku taariikhaysan tahay 23 Shacbaan 1441 oo ku beegan 16 bishii 4aad 2020. ma tahay dhibana coronavirus ama ehelkaagu ma ku jiraa
haddii jawaabtaadu tahay haa, fadlan tijaabi daraasadan caafimaad ee la tijaabiya laguna guulaystay. wixii macluumaad dheeraad ah aad u baahatana waxaad nagula wadaagi kartaa commentiga. dhammaantiina aniga iyo idinkaba waxaan noo wada rajeynayaa caafimaad waara insha Allah.